بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يلا كسر هذا برنامج قارة أو كذا للدنا أو إنك صهرة برنامج كان نقص بالعدد دقمة هولوجات جوال كبنادر ما أنت أنا جملة دقمة كاران جوال كبنادر برنامج كان هو برنامج لغة الله يدرس أنت جودهان جوال كبنادر قارهان دقمة كاران أو نحل جنا خصوصا هاي وهذا فرنا qayb kamid ah degmada Kaaraan xarunta ay ku shaqeyso ee gobolka Banaadir waxa ay nala jooga maamulka sare ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan degmada Kaaraan qaybahooda ugu muhiimsanaa haddii ahaayeen dhalinyaradii rag iyo dumarka ahaa iyo sidoo kale waalidiintii oo aabayaal iyo hooyooyin isku jiraan iyo sidoo kale qaybihii ururada ee degmada ka dhisnaa ayaa barnaamijkan ka qayb gali doona waxaan barnaamijkan ugu hadli doonaa saa horeba barnaamijtan lamidkaad u barateen waxa la xiriira dariseenta iyo macnaha uu xambaarsan yahay saas ay ligeed waxa barnaamijkan soo agaasimay oo barnaamijkan taabagelinaya hay'adda IRC oo taabagelinta barnaamijkan ka qayb qaadanaysa waxaana barnaamijkan horay kiis labaad kiisii koowaad ku daawateen degmada Howlwadaag haddana waxaan joognaa si horeba u sheegay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaan marka hore soo dhaweynayaa daawadayaasha iyo sidoo kale maamulka degmada oo naga ogolaaday inay barnaamijkan nagala qayb galaan isla markaana dadka Soomaalida aan u bandhigno waxa la xiriira darisan waxa la yiraahdo iyo macnaha ay xambaarsan tahay iyo gobolka Banaadir guud ahaan waxa kaga aadan ama qaanada uu kaga jiro waxa la xiriira darisanta iyo muhiimadda gobolka uu leeyahay waxaan sii doonaa oo su'aalo badan weydiin doonaa maamulka degmada ugu horeeyo saaxiibkay gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka degmada Kaaraan gobolka Banaadir ahna kusimaha degmada gudoomiyaha degmada oo hadda xilkan sii haya waxa sidoo kale fadhiya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada saaxiibkay Cabdiqaadir Axmed Maxamed iyo sidoo kale xogayaha degmada oo isna garabkayga midig fadhiya waa Maxamed Suudi Maxamuud dhamaan soo dhawaada marka soo dhawaada TV qaranka Soomaaliya oo barnaamijkan taabagelin oo tabinaya isla markaana ay tabinayso taabagelinayso hay'adda IRC ومحتنتا داوdaasha ayaa su'aal nooga ma doonaan oo howlka nagala sugan oo noo sheegi doona waxa la xiriira darseenta iyo wixii ka aaminsan yihiin isla markaana kommentiyo iyo su'aal la xiriira darseenta in la wadaagi doona laakiin waxaan sii doonaa gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha ana gudoomiyaha dhanka amniga ee degmada Kaaraan gudoomiye soo dhawaaw waa maxay ujeedada laga leeyahay mashruuca darseenta ama darseenta macnaheedu leedahay waa maxay aad u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay barnaamijkan degmooyinka gobolka Banaadir ka dhacayo ee looga hadlayo dariseen isla markaasna ma aragtay bulshada qaybaheeda kala duwan ma aragtay lagu baraayo dariseenta waxaan rabaa mahadcelintaas ka sokeeyo insha Allah dadka reer Kaaraan ee bulshada inta fadhida waxaan rabaa inaan ayagana kaga mahadceliyo sida aan u codsanay in barnaamijkan ama barnaamijkan nagala soo qayb galaan ayagana way naga aqbaleen waqtigooda inoo soo hureen waxaan rabaa inaan idin dhaho waa mahadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa su'aalihii inaan guda galo jawaabteedii aan bilaabo xaqiiqda haddii aan ka hadlo dariseenta iyo ujeedada laga leeyahay dariseenta waxaan annagu u aragnaa reer degmo ahaan amba ka shaqsi ahaan in ay tahay iska warqabka saxda ah iyo hoos u daadajinta maamulka heer gobol heer degmo heer waax heer laan tabeel daris ilaa iyo 10 tiriyo oo falar loo yaqaano macnaha markii la sharxay ujeedada laga leeyahay waxa waaye heer maamul ujeeday kala leeyihiin ujeedada annaga aan dariseenta ka leenahay waxa waaye in aan ka warqabno bulshada aan maamulno marka reer Kaaraan aan nahay annagu waxaan danaynaynaa xaafadaha kala duwan shanta waaxi kala duwan ee degmada Kaaraan ay leedahay xaafadaheeda kala duwan ee laamaha ku yaala 12 laamood tabeelayaasha ku yaala oo ah ma arkinoonay intaasoo ma aragta 400 iyo dhowr ma arkinoona ah oo tabeele waxa ku sii yaalo falarada xaafadaha hoose xarunta maamulka degmada iyo xaafadaha fogfog waxa ka dhacayo xaqiiqdii iskama warhayaan isuma jeedaan haddana laakiin waxaad dareemi kartaa in daqiiqad waliba amba daqiiqad ku xigto maamulku uu helayo xog waxayna ka imaanayaan xogtaas ma aragtay xaafadii taasoo sababaysa marka in annaguna ay ma arkinoona dariseyntu ujeedka ka leenahay ee taas tahay inaan hoos u daadajino adeega maamulka oo in la gaarsiiyo guri loo gaarsiiyo 10 qoysba oo ka yimaado qof ku xiran maamulkii si maamulka uu u helo dariseen sax ah sidoo kale ujeedka laga leeyahay waxa waaye in la helo tirkoobka degmadaada ku nool sababtu waxa waaye marka hore haddaadna dariseen lahayn degmadaada inta qoys oo ku nool inta guri oo ku taalo inta gaadiid ay ku hoyato inta ka baxdo inta garaash ay ku taalo inta masaajid oo ku taalo ma ogaan kartid laakiin markii adiga aad dariseen sameynaysid ama ujeedada dariseenta waxayba tahayba
inaan helnaa nambarka gaadiidka degmadan ku soo hoydo midka ma arkinoona aanan ku hoyanin laakiin dhaqdhaqaaqa inta ugu badan ka sameeyo ganacsiga waaweyn ee degmadan ma arkinoona ku yaalo ganacsiga dhexe iyo midka hoose masaajidda ku taalo dugsiyada qur-aanka ku yaalo macaahidda iskuulaadka ku yaalo kuwa brivatka caadiga kuwa dawliga ah waxaa waaye maaragtay sidaas oo kale in laga warqabaa xaafadaha guryaha guud ee degmada Kaaraan ku nool guryihii markii aa ogaatid ayaa haddana waxay tahay ujeeddada anaga diriseynta aan ka leenahay tirada saxda ee dadka ku nool reer Kaaraan oo sanad loo sameeyo macnaha maaragtay tiro koob oo lagu sameeyo maaragtay heerar kala duwan marka ujeeddada diriseynta laga leeyahay ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka heer degmo ee isku xiran ay ka leeyihiin ayaa waxay tahay in la helaa xog sax ah for example aaba Soomaaliyeed ayaa ma arkinoona lugi gacan ka dhacay degmada Kaaraan uu degan yahay waaxda wajaar uu degan yahay annagu maamulkii aan nahay qol dhaxdiisa qof ku jiro ma ogaan karno laakiin waxa ogaa karo guriga qofka la degan waxa ogaa karo guriga ka soo horjeeda ama guriga dhinaca ka saaran wuxuu ogaa karaa qofkan waxa ku dhacay xaqiiqdii aabaas wuxuu dhalay laba wiil oo ka dhalay labadii wiil biqudratillaahi tacaala way ku caasiyeen way ka tageen guriga kaligiis waxa loogu tagay asoo carradii ruugay bulshada xaafadda ogaatay waaxdii la gaarsiiyay degmadii la soo gaarsiiyay degmadu way ku baxday inay jawaab ka bixiso ayay u istaagtay still ilaa had process oo socda waa kiiska ugu dambeeyay oo ma arkinoona dhacay dariseyn la'aan waxa waaye iskama warqabi karaan bulshada iyo maamulkooda iskama warqabi karaan marka ujeedada saxda ay laga leeyahay waxay tahay in la ogaado tirakoobka saxda ee heerarka aan soo kala sheegayna sidoo kale in la helo hoos u daadejin maamul sababta qofka shacabka laftiisa hadoonan aqoonin qof oo u caawdo amba waxa oo arkay qof oo u sheega hadii oonan helin xaqiiqdu waa dareemi kartaa waxay noqonaysaa inuu la soo lugeeyo markii midalan for example xaawa casar wax ka dhacaan qofku ugu horeeyo arko hadii oonan heli karin qofku ugu dhawo mas'uulka amba xaafadaas amba diriskiisa oonan ku ogeyn toban tiriyaha degmada u qaabilsan hadoonan aqoonin midka tabeelka ay kontonku guri oonan aqoonin midka laanta oonan aqoonin midkii waaxda oonan aqoonin kii ma arkinoona degmada oonan aqoonin waxay tagaysaa inuu raadiyo wax dawladnimada ma aragtay ka muuqato amba astaan inuu raadiyo tagaysaa si kiiskaas ma arkinoona ugu warbixiyo waxaan laga yaabaa kiiskaas emergency inuu isla markaas qabasho u baahan yahay si marka bulshada loogu daadajiyo adeega dawladnimada bulshaduna danta koowaad ee ujeedada ay ma arkinoona anaga aan lahayn waxay ahayd bulshaduna inay helaan dawladnimo dhow saaxiibtinimo dawladeed oo dhow inay ka helaan ma aragtay waxaan u maleynayaa su'aasheeda in ma arkinoona binaadana nahay in wax ka dhinaan karaan laakiin ujeedka saxda ee gobolka Banaadir uu ka leeyahay sababta duqa magaalada ma ogaan karo Kaaraan wax ka dhacay laakiin aniga waxaan dhihi karaa waa ogeedeen roobkii daay Argentina guriga qoys ku dumay saddex ruuxa ku dhimatay saddexda ruux ee dhimatay duqa magaalada uu yimid wuu soo booqday wuu ogaaday goorma ogaana aniga goormaas ogaana maamulka degmada 13 Argentina degnaa wuxuu warbixin si gudoomiye laameedka xaafadda laanta tabeelka laanta afraad tabeelka xaafadiisu si gudoomiyii waaxdii soo waceen habeenimo 7 saac xoogaha kiiska dhacay annaga maamulka la soo wargeliyay waxa dareemi kartaa marka waxaan u sii gudbinay maadaama kiis ma arkinoona oo qadar dhacday dirbi qoys ku dumay dhinteen waxaan sii gaarsiinay maamulka gobolka waxa dareemi kartaa kiiska xilliga dhacay iyo kiiska xilliga maamulka gobolka Banaadir ee warbixinta gaartay ama ay ka jawaabeen in ay u dhaxayso daqiiqado aan la dhihi karin xitaa 30 daqiiqo la dhihi karin marka waa ujeedka saxda ee laga leeyahay taas ah iska warqabid oo sax ah waaye gudoomiye boqolkiiba boqol waa maasan tahay waxaan filayaa in gudoomiye ku-xigeenka anagu Soomaan gudoomiyaha oo si waafi ah oo dadkiina meesha fadhiya oo u sharaxay macnaha laga leeyahay diriseynta waxaan filayaa in laga qancay su'aasha ay weydiiyay muhiimada lahayd waxaan sii doonaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Sheekh Cabdiqaadir gudoomiye soo markii la bilaabay mashruucan diriseynta maxaa isbedel ah oo ku soo kordhay degmada Kaaraan bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya ba'd marka hore waxaan u mahadcelinayaa SNTV iyo hay'adda IRC sidoo kale waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa kaamirmaanada horteeda taagan iyo wariye Cabdinaasir Daahir Sabriye oo barnaamijka tabinaya sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada reer Kaaraan oo leh rag iyo dumar culamaa u diin bulshada qaybaha kala duwan ay halkan ugu sugan oo matalaya reer Kaaraan waa dad fara badan oo tiro badan halkan maaragtay lagu soo koobi karo laakiin waa qayb kamid ah oo matalaysa bulshada runtii gudoomiye Saalax ayaa aad u sharxay diriseynta iyo waxay tahay iyo faa'iidada leedahay nuxurkeeda
sidoo uu sheegay waa sida aad ugu fiicneed oo anaga ugu sheegi lahayn ayuu u sheegay. Mashruucan dirisiinta markii la sameeyey waxyaabo badan ayaa ku soo kordhay oo maaragtay laga gaaray jirto. waxyaabaha laga gaarayna waxaa aad u faahfaahiyey gudoomiyaha. tusaale haddii maanta aan u baahdo xaafad ka mid ah xaafadaha ku yaala degmada Kaaraan waa 5 waaxood. 5 waaxood waxay sii leedahay 22 laamood. haddaan u baahdo marka xaafad ka mid ah xaafadaha marka hore waxay ahaan jirtay in gudoomiyaha waaxda uu maaragtay toos u raadiyo ama gudoomiyaha degmada oo baabuurkiisa iyo asagoo maaragtay socdo raadiyo xaafadihii raadiyo. laakiin hadda taa waxay noqotay direct si toos ah ayaa warbixinta waxaa noo soo siinayaan shacabka ku sugnaa xaafadda. waxay leeyihiin waxaan joognaa xaafad hebel, waxaa ku sugannahay meeshaas ereydaas tabeelahaas gurigaas, waxaan u baahannahay waxaan aragnay wax noocaas oo kaleeto aan ka shakinay baabuur, ama waxaan u baahannahay gurmad, ama waxaa nagu dhacay oo kaleeto dab ayaa kacay, waxaan u baahannahay gurmad in lagu soo gaarsiiyo. si toos ah marka waxaa aad u fudud marka muhiimadda marka dirisiinta oo keenay oo bulshada xaggeeda waxay tahay in si fudud oo maamulku uu ku yaqaano meesha dhibaatada ay ka dhacdo, macnaha si toos u abaari karaa asagoon macnaha raadinin jiir aan gelin ayuu maaragtay si toos ula soo xiriiray qofkii shacabka halka ku sugnaa, halkii qofkii shacabka ahaa iyo gudoomiye tabeelihii iyo ilaa iyo tamantirihii ilaa gudoomiye waaxdii iyagoo isla socdaan iyo gudoomiye degmada iyo ku-xigeenadii xogii iyo waaxyihii kulli maaragtay waxay aad maaragtay ugu fudud inay meeshii tagaan si marka loo arintaas looga jawaabo. marka waxyaabaha maaragtay noogu soo kordha waxaa ka mid ah marka in bulshadii aan la yeelanay cilaaqaad hoose oo maaragtay aad u weyn oo sida hore ka duwan. marka xiriirkaas wuxuu xoojinaa marka isla shaqaynta maamulkii iyo bulshadii. ileen maamulku waa 12 qofood, 12 qofood ma ahan macnaha maamul kaliya, macnaha ay maamulayaan bulshadii ay maamulayeen hadiisan hierarchical ama kala sareen ama maaragtay meel kula xiriiraan aysan lahayn maysan maamuli karaan. marka waa inay helaan meel kala xiriiraan. meel ay kala xiriiraan waxaa waaye waa inay maaragtay maamulka hoos u daadejiyaan. maamulka inay hoos u daadejiyaan waxaa waaye in bulshadii iyo shacabkii wada shaqayn ay ka dhaxayaan. marka waxaa helnay wada shaqayn u dhaxeeya maamulka iyo shacabkii. Cabdinaasir maasanta dadka markaa si doonaa qofkii su'aal qaba uu gacanta taagan doonaa kadibna waa ka qori doonaa si dadka loo gaarsiiyo mikrofonka oo qof oo su'aalaha uu qaato. waxaan si doonaa qofka ugu horeeya si doonaa waa wiilkan dhexda ku jira si doonaa oo tagi doonaa. aad baan ugu faraxsanahay shir noocan oo kale doodo in aan ka soo qayb galo. su'aasha aan weydiinayo ka maamul ahaan ka Cabdulla aan weydiinayo maamulka waxa waaye dirisiinta waa shay aad u muhiim ah sababtoo ah dirisiin haddaan ay jirin amni ma jiro. waxaa jirto in la sameeyey dirisiin 20 qofood oo tabeel walba 15 qofood oo madani ah oo dad isku dar ilaa 5 balaas 20 qofood. maamulka ka maamul ahaan waxaa la dhahay ka maamul ahaan oo gobolka Banaadir waxay sheegeen in dadkaas oo shaqeynaya duruuf adag ku shaqeynayo in loo sameeyo doono budget. anagoo su'aasha kala dhaxbaxay meesha inta degmadeena oo dadkii oo barnaamijkaas loo diiwaan geliyay maxay tale ay ka qabteen, maxay xuquuq ay u raadeen ayagoo duruuf adag ku shaqeynayo. kumaantahay ya kala su'aal qabo oo inta ma comment qabo haya wiilkan geesoo kan waxaad dhahday dirisiinta waxaa waaye waxyaabaha aadka ugu fudud in lagu ogaan karo bulshada waxa ay ku sugan tahay. marka su'aasha waxay tahay qofka oo soo sheegay warka sidee kalsooni loogu qabi karaa? qofka raba inaa warbixinka oo ku soo siiyo oo kula soo wada oo kula barnaamijka meeshaan dhib ka dhacay sidee qofkaas kalsooni buuxda loogu qabi karaa in jawaabta laga bixi karo isla markii? maasanta waaya وماسين سؤال مهم وايد سؤال شاذ وحنا تسدنا قدميها قدمي أمي جاب سدنا وهو شيء سبا إن قف كلا هذا كجرا ولو قف دمر كايه يا سؤال كلا قبوا أما كم تقدر يا أنت قبين هاي haddaan ku hormar marka su'aalsheeda oo ku saabsaneed dirisiinta horta way bilaaran tahay system badan oo loo marana jiro. dirisiintu marka maxaa idin kaga qorshaysan kuwa ma jira foomam lagu diiwaan geliyo iskuulaadka amba garaashada ha noqdaan meelaha muhiimaadka oo tirakoobka u baahan
waxaa kaloo jira guddoomiye laameedka ama fallarka jiro bulshadu ma yaqaaniin haddii aan qofka oyna aqoonin meelay su-aal ku soo gudbiyaan ma jirto ma jirtaa marka inay qofka aad su-aasha amba dhacdada markaa la kulanto qof aa u martaa jirto haddaa aniga guriga aan deganahay fallarka aan ka deganahay haddii aanan aqoonin guddoomiyihiisa ma jiro meelaan ku soo marsiiyo oo waqti dheer bay qaadanaysaa dhacdadana waxaa laga yaabaa inay waqti yar ay ku koobnaato ee dhacdo marka ma jiraan guddoomiyaha meeshaas jiro inuu wacyigelin u sameeyo ma yaqaanin dadka bulshada waxaan ku mar doonaa su-aashii oo la weydiiyey wiilkan ee ku saabsan arrimaha amniga waxaan sii doonaa gudoomiyaha amniga bismillah waa mahadsantahay akhyaarta su-aalahana weydiisana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waa run waa fikir ay qabaan dhammaan bulshada Kaaraan dadka degan waana xaq qofka su-aashana weydiiyana walaalkiis ayaa su-aashan amba walaashiis ayaa su-aashan ay ku jirtay waxaan rajeynaa in laga bogsan doono jawaabtan hadduu ilaahay yiraahdo su-aashii waxaan ku hormaraa maxamed cismaan shariif uuna weydiiyey oo ahayd sidee maamulka ma arkin oo ugu kalsoonaan karaan qofka shicibka report soo siinayo xilli xaqiiqdii maxamed waa mahadsan tahay sida saxda waxaa dhacdo habeenada 24 saac waa la shaqeeyaa maamulka degmada horta ma laha saacad gaar ah oo shaqeeya maamulka degmada oo la dhahayo saacadaas oo xafiis galaa saacadaas uu ka baxaa horta wax la lahayo ma jiro maamulka degmada marka la lahayo waxaa jira marka maalin iyo habeen maalinta waa wala muuqdaa oo isha wax qabanayso habeenada qaar waxaa jiraayo humaagmiya ma mugdiga dartiisa ribooda qof wuxuu u soo tabinaa si qaldan macnaha uu ku soo sheegaa waa aragtidiisa koobaad waxaa laga yaabaa asiga markuu wax ku soo sheegayo inay waxaas la qaldaneen macnaha amba in loo sheegay amba wax oo arkay in sidoo uu arkay ee sidaas la ahayd macnaha xaqiiqdi soo arkayana ma aha balse laakiin sidoo uu arka ayaa waxay tahaybo in waxaan midalan qof suuxay oo jid ku arkay oo qalal ku dhaco kale hadda riboodku ugu dambeeyay suuqa Kaaraan dhexdiisa qof ku suuxa eeriyada xararta qofku waa qalalay waa dhacayay haween meesha maraayeen iyo caruura arkeen waxay u qaateen inuu dhinto qofka afkoo taagay waa jareeyay waa kala taagmo waa maroogsamay xanuuna ku dhacay oo qalal ah riboodkii qofka ay yaqaaneen oo ugu dhawaa oo markaas ay dhihi kareen alla ilaahay qofkan maamulku ku xiran yahay amba ma arkin oo riboodo soo gudbina waxay u sheegeen in qof meesha uu yaala meedna uu yahay qofkii uu soo waciyay wuxuu yiri arrinkaas jiro waxaan diray isla markii maamulka qeybihiisa kala duwanaa sida booliiska iyo hay'adaha ma arkin oo amniga ee nabad sugidda si loo soo xaqiijiyo in ma arkin oo qofkaas hadii ay jirto inuu dhintay hadii uu qof ma arkin oo muxuu ahaa yahay shicib ah hadii uu yahay qof ma arkin oo muxuu ahaa ciidan ah waxa uu yahay dhimashada kiiska sababta la sheegay dhimashadaas dhacaydana ma qadar rabbi oo qofkii ma arkin oo asigoo socdo wadnaha istaagay ma ficilkaanaaba laftiisaba run ahayn sidee wax u jiraan xaqiiqdii adiga way ku dhaqaaqeen qofkii ayaa laba jeer aan ku celinayay waxaan dhahayay ma xaqiijiseen mala kor tagay qofkii shacab miya dhar noocoo wataa da'diisu maxay tahay at least waxaan sameynayna muxuu ahaa qofku xog raadin qofku riboodka ku siinayo marna wuu saxsanaa karaa marna wuu qaldanaa karaa mar kasto oo ribood lagu siiyo run iyo been adiga kalsoonida ma ahan gurigaaga adoo joogo inaad kalsooni raadisid marka hore waxa way maamulku kalsoonida gurigiisa asigoo dhex jooga ma raadinayo waxuu sameynaa dhaqaaq abeenada la soo sheego waa la dhaqaaqa waxaa loo diraa xogta xaafadda tabeelka sida ay idin sheegeen fallarka tabantiriya qofkan hadduu sugaayo marka inuu cabdibile iyo ciidan soo socdo uu sugaayay waxaa imaan doona qof shicib oo tabantiriya oo agtiisa iska maraayo oo meesha wixii ka dhacay xaqiijinaya kaliya annagana waa wadadan ku sii soconaa hadday been noqotana waa xaqiijinaynaa hadday run noqotana waa xaqiijinaynaa waa kortagaynaa marka mar kasta oo ribood saxa ama ribood qalada la soo sheego annagu kalsoonideyna koowaad waxaa waa inaan seef gareyno sometimes waxaa la arkaa fiilo dhulka ku jirto hoosteeda waxa kusii jiro lama yaqaan inay tahay fiilo ma arkin oo xilli hore dhulka gashay in cadowgi ma aragto oo miino ku aaso meeshan fiilada banaanka taala lama yaqaan qofku wuu shakina wuxuu ribood ku soo bixinaa meeshan waxa ku jirto leeyahay miina ku jirto asiga ma ogo ma baarin gunta ma ogaanin miinadii ma arkooyo laakiin adiga maamulahan wuxuu ku soo sheegaa meeshan inay miino ku jirto adiga ma dhihi kartid marka qod ogow ee soo xaqiiji ee kalsooni iga sii horta marka ogaatid inay miino ku jirto aad baaleysido baash aad qodid ee banaanka soo dhigtid aan ku imaha ma dhihi kartid
waxaa laga yaabaa marka riboodka inuu been yahay fiile ay iska yihiin waxaan meesha ku jiro adigaa lagaa rabaa marka ka maamul ahaan kalsooni inaa ummadda siisid ma ahan kalsoonida inay shacabka ku siiyaan riboodka marka sembirin positiveka iyo negativeka ilaa laga daba tago hay-adaha amniga ee baaraan la ogaado waxaan inay negative yihiin ee been yihiin markii la ogaadaa leeyahay fiilada waa tanaa macnaha waxaan fiilay ahaayeen nabad ku jiifta nabad guryihiina ku jooga waana mahadsantihiin riboodka aana siiseenna waa ku mahadsantihiin allah waxaan si doonaa gudoomiye waxooyinka ayaan si doonaa inaan bulshada in kasoo xogay usoo laaban doono mid kamid su-aalaha yarna in loogu jawaabo dhalinyarada su-aasha cabdiqaadir waxay ahayd foom ma loo sameeyaa darisaynta runtii waxaa jiro foom loogu talagalay in laga buuxiyo qofka muwaadinka ah ee ku sugan goobtiisa tusaale qofkii markuu u tago tiimka ka shaqaynaya darisaynta markay dhaqaaqaan ay u tagaan dadka goobe ay ku sugiin u tagaan oo kale oo la doonaya in la diiwaan geliyo foomka laga buuxinayo foom ayaa jiro foom laga buuxinayo ayaa jiro foomkaas su-aalo ayaa ku qoran oo qofka la weydiinayo su-aalahaas waxaa ka mid ah tusaale waxaa waaye gurigoo kale meesha oo qofku maaragtay diiwaan gelinayo uu tegey waxaa jooga qofkii mas-uulka ah guriga ayaa waxaa la weydiinayaa dhowr su-aalood su-aalaha la weydiinayo waxaa ka mid ah imisa caruur ah ayaa gurigan joogto imisaa qaangaara imisaa weli qaangaarin imisaa raga imisaa dumara intaas horta kow marka hore in la kala xaqiijiyo marka intaas la helo kadib haddana waxaa la weydiinayaa su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah imise gawaari ayaa gurigan ku soo xarooto tusaale 3 hal 2 ku xarooto ma leeyihiin taarga number ma leeyihiin taarga numberkii leeyihiin ayaa laga qorayaa si loo helo xogtaas hadhow gawaaradaas mid ka mid ah haddii wax qalad ku dhaco kale si isla markii loo helo xogtii loo helo waxyaabaha kale maaragtay macnaha la weydiinaya waxaa ka mid ah gurigan ma yaalaa oo gudihiisa ma ku jiraan wax hub ah gudihiisa ma ku jiraan haddii ku jiraan ma yihiin kuwa sharciyeysan yaa iska leh yaa maaragtay guriga xogtan maaragtay hubkan yaa halkan ku xareystay ma bistoolada meesha waxa ku jiro ma aakaa ma dabajeexya ma hub waaweyna hub noocee ayaa ku jiro in la ogaado tusaale waxaa jiri karo hubka guriga yaal waxaa ka mid ah qofka hubkaas waxaa lahaan karo dowlad oo ama waxaa lahaan karo hay-ad laakiin waxaa qasab ah hadduu bareefad leeyahay ama dowlad uu leeyahay dowladdii aba iskale waa sharciyeysan yahay hadduu bareefad leeyahayna oo tusaale hay-ad lagu waardiinayo ama hotel oo kalete ama meel makhaayay ama meel kafee lagu cabo kale lagu waardiinayo waa inuu maaragtay lasoo diiwaan geliyo uu sharciyeysan yahay waxaa la warsanaa marka hubkan ku yaalo noocee waaye markuu sheegay kadib hubkan ma sharciyeysan yahay hadduu sharciyeysan yahay waxaa maaragtay lala xiriiri doonaa hay-adii amniga oo diiwaangelinta maaragtay barnaamijkaas la xiriiray qofku muwaadinka ah markuu xogta helo si dhaqsi ah macnaha yuu la soo xiriirayaa waxay ka mid su-aalihiisa ka mid ahayd su-aalahaas macnaha waxaa waaye qofku markuu la kulmo wuxuu la xiriiraa macnaha waxaa sameynay sida day saalax sheegayay maamulkii waa daadejinay shalay waxay ahayd guddoomiyihii in la waco ama taliyihii la waco guddoomiyihii ama taliyihii waxaa laga yaabaa inuu shir ku jiro oo mashquulsan yahay at that time aan la heli karin ama maamulka kale ku xigay oo maaragtay ka hooseeyey si uun u mashquulsan yihiin marka maamulka waa la daadejiyey hoosaa loo daadejiyey waxaa la geeyey 10 tire qofku marka xaafadda degan wuxuu ka tirsan yahay 10 guri mid ka mid ku jira 10kaas waxaa amiir u ah ama hoggaan u ah qof ka mid ah hoggaan u ah qofkaas ayuu automatically u gudbinaa qofkaasna wuxuu u gudbinaa diriskiina laanti waaxdi marka si wada jir macnaha waxaa u fudud marka in si dhaqsi ah qofkaas meesha maaragtay fariinta soo gudbiyey in automatically si dhaqso ah looga soo jawaabo iyadoon loo baahanayn guddoomiyihii iyadoon loo baahanayn maaragtay ku-xigeenadii ama xogeeyihii ama maamulka kale macnaha waxaa aad u fudud dadkaas macnaha aad loo dhiirgaraynayo ula shaqaynayo waa 10 tirihii diriskii oo kontonka guri ka talinayo tabeelihii ilaa laantii tusaalihii marka laantii haddii loo soo gudbiyo soo gaarto laantii waxaa ka sareeya waaxdiina waxay soo gudbaysaa golihii sare ee maamulka marka waxaa waaye waa barnaamij macnaha consecutive oo iskula xiriiro maamulka qaybihiisa kala duwan marka si maaragta loo helo xog dhammaystiran si loo helo baahida shacabka si sax in looga jawaabo waxaa aad maaragtay loo dhaqan geliyaa ama aad loo maaragtay loo tixgeliyaa waxaa waaye barnaamijka dirisaynta
ومالته waxaan si doonaa xogayaha degmada si doonaa xogay wax rabay ka jawaab su'aashii Cabdullaahi saaxiibkay Cabdullaahi Cali Macow su'aashu soo bandhigaan rabaa inaan toos u abaaro Cabdullaahi khayr Allah siiyo wuxuuna weydiiyey ma jiraan wax qorshe uga degan maamulka degmada dadkii ka shaqeeyay dirsaynta ayagoo ku shaqeeyay duruufo adag waan ognahay dhalinyaradii ka shaqeysay dirsaynta inay ku shaqeysay duruufo adag ay wax mushaar ay qaadan ay wax oo xuquuq aysan qaadan laakiin maamulka degmada iyo kan gobolkaba waxaa u qorshaysan oo processing ah in xuquuq ay heli doonaan guddiyadiina soo booqday oo heer qaran oo arrintaas naga controlaya waxay noo sheegeen in ay kaliya ay ka horeeyaan laamaha haddii loo helo xaq xuquuq oo wax gunnaa inay ku xigi doonaan dadka oo dirsaynta iyo ka shaqeeya marka maamulka gobolka Banaadir aan ka rajaynaynaa annagu degmaan nahnay laakiin waxaan process garaynaynaa dadka inay xuquuqdooda helaan marka waa wax mutadawacnimo lagu shaqeynaa laakiin marka dambe waxaan rajaynayaa in la helo xuquuqda dadka muwaadiniinta oo dhalinyarada oo mutadawacnimada ku shaqeeyay haddana weli shaqada looga baahan yahay maalin uun bay soo dhalaali doontaa rajadiina waa mahadsantihiin maanta marka waxaan ku laaban doonaa bulshada daawanaysa waxaan sii doonaa qaybta dumarka ayaan sii doonaa waxaan ku bilaabi doonaa hooyado kadibna ku gudbi doonaa su'aashaan maamulka weydiinaya waxaa waaye markaan soo daadego tusaale ahaan dhibaa dhacay dilaa dhacay qof baa gubashaa dhacday qataraa yimiday qatarii markay yimideen guddoomiyihii waaxda waa la waayey kii laanta waa la waayey tabeelkii waa la waayey tomantariyihii waa la waayey fal waxaasoo dhan waa la waayey dhibna waa dhacay wuu sii ballaartay marka dhibkaas markuu dhaco ka maamul ahaan sharci u degsanoo lagu dhaqo ama sharuudo ka yaala ma jiraan su'aashaasaan weydiin lahay maamulka anuun isku dheerayna halkaasaan kusoo kooba insha Allah su'aasha aan weydiinaa waxay tahay maamulkayga sharafta leh horta ani dirseen ma aqooninbo hadda adiga kaa bartay kale waa kaaga mahad celinaa mid kale su'aal waxay tahay dirseen ma waxaa dhihi karnaa waa isku xirka degmada iyo dadka xaafadda mise waxaa dhihi karnaa waa dadka isku xirka xaafadda oo kaliya waxaa kaloo su'aal weydiinaa gudoomiyaha arrimaha bulshada Cabdiqaadir maadaama aad dhahday dirseenta waxay ku saabsan tahay guriga marka la yimaado dhalinyarada in qaangaar kii yar midka weyn gabadhi wix joogo in la xisaabiyo waxaa laga yaabaa familka inuu u joogo dad qaangaar dugsi sare dhameeyay laakiin jaamacad fursad u helin waxaa laga yaabaa qaar dugsiga sareba aan helin ma laga yaabaa inay caawiso degmada waxbarasho ceenkaas ay ka bixiso maadanta waayo qof saxaad ayaan si doonaa oo wiilkan geeska toos su'aalaha toos abaarno salaanta ha gudubno marka waqtigan haya toos su'aasha u abaar magaca ku bilow toos su'aasha u abaar magacaygu waa Xuseen Axmed Maxamed waxaan deganahay degmada Kaaraan mudane gudoomiye ku simi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa sheegtay in aad leedihiin maamulkiina uu yahay maamul degmo waax laan tabeel tabantiriye waxaan ka rabaa marka maadaama intaas ay fariinta ay soo marayso anigu ma aqaano tabantirihi ma aqaano laanti ma aqaano gudoomiyihii waaxda oo xaafadeeda maba yimaadaba qaab noocee ayaan fariinteeda ku soo gudbin karaa mase la heli karaa ma heli karnaa haddii aan nahay shacabka ku nool xaafadaas haddii 5 kamid ay yaqaanin waxaa kamid ah waxaa macquul inay 10 kamid aysan aqoonin dowladnimada ay la burburta dirseenta ma heli karnaa marka qaab dadka aan aqoonin laamaha iyo waxyaabahaas aan aqoonin ma heli karaan qaab kale ay fikirkooda ku soo gudbiyaan amba dhibaatada dhacda ay maamulka kula wadaagaan gudoomiye ku-xigeenka waxaa rabaa isna aan weydiiyo su'aal taasoo ah gudoomiye ku-xigeen anigu waxaan rabaa inaan degmada Kaaraan soo dego form ma liiga buuxiyaa haddii degmada Kaaraan aan soo degayo warqad caddeynna ma liiga qoraa mise dadka degmada degan ma weydiiyaanba gudoomiye waxaad aad leedahay ma weydiiyaa dadka form laga buuxiyaayo oo laga soo qora ma jiraa amba lagu diiwaan geliyo dadka degmo kale ka soo guuraayo ee degmo kale soo dego oo rabo waxaa macquula qofkaas degmada ka soo guuraayo ee degmada soo degayo in Kaaraan ay nabad tahay oo maqlay oo ku soo dhuumanayo inta badan ay sheegtaan dadka nabadiidka in Kaaraan gambaad ka dhigtaan maadaama nabadeeda ay arkeen marka form ma jira adi ahaantaada ku diiwaan gashan oo gudoomiyaha waaxda aad siisid uu ka buuxiyo qofka soo galaya degmada ee degayo amba kiriistaha ah amba qof sanada xaafada ka maqnaayo qurba joog ah yimid waa mahadsantiin aad iyo aad
waxaa tiri qofka tobanteriyaha ama gudoomiyaha laanta gudoomiyaha halaada ma aqaana tiri waxaa kaloo tiri ma yimaado xaafadda marka ma aqaan iyo ma yimaado ma iskeeni karto macnaha adima qofka aqoonin mas waa taqaano ma yimaado waa ogtahay qofka waxaa lagu aqoonsan karaa horta waa inuu iska baraa inuu dowladnimo dadku la isku baraa muqt qofka waxaan ku baran karaa inuu u yimaado oo uu dhaho waxaan ahay qof noocaas ah oo fikirkiisa horta uu iga dhadhacsiyo ani waxaan macquul inaan aamin aniga oo sababtoo aan cabsanayo haddaan as dhahay haddii qof dawla aad la xiriirtid haddii qof dawla ka socda aad la xiriirtid waa lagu dhibaataynaa maadaama dadka qaar saas ay aaminsan yihiin hadda aad iyo aad ay muhiim noogu tahay sababtoo waxaan soo marnay xilli markaan degmada soo galayno waalidkeena uu nagala cabsaa waalidka annaga kale dhala ah cabsana waxa uu dhahayaan degmada lagugu sawirin ka soo noqo marka hadda dad waxaaba jira weli fikirkaas uu ku jiro ah qofka dawla la xiriiro ama maamul degmo la xiriiro in la dilay aaminsan marka qofkii maxaan ku baranaa horta ma iskay barnaas inuu dawla yahay haddii gudoomiye ku-xigeenka uusan iimaanna ay dhehen waxaan nahay qof noocaasa dhibaatada ku gaartaa waxaan rabaa inaan kaa wareysto marka adoo si iskay baran leh marka fikirkayga gudbisanaa soo ma marka intee kaleto soo marsiina marka maadantahay su-aashii hooyo iyo su-aashii wiilkan dhalinyarada ah waa laba su'aal isla waaye hal mar anaa isku qaadanaa isku jumlaha mar anaa isku qaadanaa aad u mahadsantahay noo soo koob waxaan rajeynaa waayaha waa mahadsantihiin su-aalaha lii weydiiyey aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxaan u malaynaa inay aad isaga dhow yihiin macnaha qofka waxaan ku hormaraa horta maamul suldaanahan ku hormaraa su-aasheeda waa runta waxaa jiro qof muwaadin ah gurigiisa subaxdii ka kalaho 11 saac ama 12 saac subaxnimo ka kala haayaba xarun dawlo iyo xarun degmo aanan aadin laga yaabo 20 sano ama 15 sano ba oonan hortagin xarun degmo iyo xarun dawladeed isla markaasna habeenkii uu soo hoydaa subaxdii uu ka kala haa xaafadii haddii uu wax arko qofkaas ma yaqaanaba waxa maamulkiisa ma arkin oo xaafadda ka shaqeeyo midka degmada waxa laga yaabaa inuuna ka warhaynin oo qofkan iska ganacsado uu yahay ama qof mashquulkiisa badan oo yahay sida safarleeda dadka ah waxa laga yaabaa 2 bilood 3 bilood inuu ka maqan yahay xaafadda oo safar oo jiro oo soo noqonay sida dadka gaadiidka oo kale dadka ugu badan aan maamulka aqoon dadka ugu badan waa iyaga waxaan rabnaa marka sida saxda ah markay dhibaato dhacdo ama dhacdo ay dhacdo waxa dhacdo qofka inuuna aqoonin bini'aadan waaye diriska qofka mas'uulka ah inuuna aqoonin toban tirihi inuuna aqoonin laanti inuuna aqoonin gudoomiye waaxda inuuna aqoonin qofka laba option oo marka sameeyaa qofkaas laba option oo sameeyaa macnaha in qof yaqaano intaas oo asiga oonan aqoonin oo dariskiisa ah haddii dhacdada wax muuqda ay yihiin macnaha inuu yiraahdo waxaasaa jiro waa jid oo qof u yaqaan midalan aniga ma aqaano kale for example laakiin waxaan aqaanaa saaxiibkay oo yaqaano waxaas dhan yaqaano in saaxiibkay aan dhaho arrintaasaa jirtona waa jid waaye in qofka haddii saaxiibkiis wax uu ku aamini kara aanan ahayn oo isdhaha waxaan iyo xog waaye iyo bixin wuxuu sameyn karaa cala duul saldhigga ugu dhow waaxda ugu dhow laanta ugu dhow xaruntii degmadu imaana macna markaasuu leeyahay report for example aaba ayaa wiilkiisa wuxuu ugu shakiyey waxyaabaha ma arkin oo nabadiidka ah dadka nabadiidka ah ayuu ugu shakiyey wiilkiisii oo ka soo shakiyey macna reportki waa baadiyo ka yimid wuxuu ku ogaa baadiyo wiilku wuxuu ku ahaa xamaro wiilku soo dhuuntay wuxuu isiri kii baadiyo waa ka soo tagay xamaro tagay waxaadna ku ogeed wuxuu baadiyo ku sameey jiray talow xamarna muxuu ku sameyn doonaa wuu ka daba yimid wuu indheeyey xamaru ugu bagi waayo haddana waxa uu sameeyayo wuxuu u baahday marka xogta inuu ma arkin oo maamulku siiyo baadiyo ka yimid ma yaqaano toban tiri fallar ma yaqaano wax ma yaqaano waa sida hadda la sheegayo kale waxay danta ku kaliftay inuu dhahayo maandeysku ii tilmaama meesha maamulka ama xaafadahan laga xukumo ma ku taal ii tilmaama qofkii gacanta laga soo qabtay sidii loo soo waday waa noola keenay wuxuu ilaahay qoray inaan maalin 4 saac isla fariisano oo xogta isiyo isla markaasna aan la wadaago ma arkin oo hay'adaha oo sida diibliga ah ee u qusayso oo sida qotada hoose ee u qusayso inaan la wadaago qofku marka laba u furan inuu si toos ah ma aragto ugu soo dhaqaaqa xarunta ugu dhow in oo xodiisa uu la raadiyo qof ma arkin oo qofkan yaqaan macnaha inuu la raadiyo labadaas waay waxa kale oo sheegaa maamul suldaano oo ugu dhameystira marka waxa jiro dadka markay intaas ka quustaan macnaha ama xitaa xarunta oo ka gaari kareen waxaan kiis oo macnaha dab dhaco kale ka soo qaadbo dabna ma yaqaan subaxii xarunta tagay ma yaqaan waqti dambana waay qofku muxuu baahan karaa waxa jiro wax anaga aqabano oo sanad la waay laakiin waxa rajaynaynaa in bille amba xataa 6 bilood amba bil hoos loo daadajiyo waxa la hayo community policing waxa loo yaqaan oo afka qalaad loogu yaqaano laakiin afka Soomaaliga lagu dhaho iska warqabka booliiska iyo shacabka
macnaha booliiska keligiis ma ahan waa ciidamada qalabka sida ma arkinoon hay-adaha ma arkinoon amniga qaybahooda kala duwan laakiin hadda qorshaha inta uu ku bilowday iyo inta uu ku socdo waa iska warqabka shicibka iyo booliiska sanadka 2017 waxaa la qabtay oo howlka lagu qabtay ugu dambeeyay shicibka iyo booliiska inay soo rimaadaan oo hay-adihii ma arkinoon amisom oo booliiska amisomta ay ku jirto qofku waxaa loo keenaa number fudud oo la haayo 3 number waaye lacag mugu baxayso kiis emergency oo arkay telefonkiisa lacag ku jirin wax kale iska daa telefonkiisa lacag dadku wax kuma jirto wuxuu qabanaa marka telefonka loo yaqaan 888 sadexdaas number waa bar kamid ah baraha saldhigyada ma arkinoona booliiska ay leeyihiin waxa u sheegaysaa xaafadda degan tahay taliyaha saldhiga ma taqaanid gudoomiyaha ma taqaanid waxa leedahay ma arkinoona dhacdadaas dhacday laba qoys isma qareynooso guriya dumay dabaa kacay laba moota isku dhacday shila dhacay qof waayeela kufay qof taqaana male qof in la qaadaa la rabaa jidku dhex yaala waxaasoo dhan waa u sheegaysaa qofka aad khibrad garayso wuxuu ku weydiinaa degmada degan tahay area masaajidka amba xaafadda meesha ugu dhow caanka uu ku weydiinaa immediately gacana ag yaalo taliyaha saldhiga waxa wuxuu leeyahay soo xaqiiji arrinkaas jira soo xaqiiji waxaan rabaa arrinka Xuseen inaan sii xoojiyo hadduu qofka dawladiid ahaan su'aalaha uu weydiiyo waxa laga yaabaa qof dawladiid ah inuu ku dhaqmo amba qof sida aan sheegayna safareeda inuu ku dhaqmo amba qofka ma arkinoon haddana qofka dawladiid ahaan labada option oo u furneed waxa waaye ama diriskiisa inuu u tago ama xarunta degmada inuu tagiyo bulshadu maamulka degmada inay barato iyada diyaar u ah laakiin bulshadii inay maamulkooda bartaan waxaad u malaysaa inta badan inay ma aragta ka sii cagajiidaan marka bulshada waxa la rabaa barta maamulkiina maamulo adna bulshadaada baro ujeedada diriseentaad sida ah waa santa waya intaan aad gelin waxa rabaa inaan xogayahan siiyo laakiin adigu hormar oo waxa ka jawaabtaa su'aasha oo weydiisay gabadha qaali aad u maasan tahay qaali su-aasheeda oo laba qaybood u dhaceysay diriseyntu waa shacabkii iyo maamulkiisa isla shaqaynaya haddii shacabkii la waayo maamulna uu taagan yahay maamul wax ma maamuli karo maamul wuxuu wax ku yahay oo maamulaa waa shacab shacabkuna waxay u baahan yihiin maamul saad ogsoon tihiin diinteenna islaamka waxay maaragtay qabtaa in amraysaa 3 qofood haddee meel isugu imaado mid ka mid inuu maaragtay u noqdo amiir ama hogaamiye u noqdo marka waxa weeyaan waa wax isku xiran shacabkii iyo bulshadii shacabkii iyo maamulkiisii shacabkii iyo maamulkiisi waxay noqonayaan marka laba far oo isku xiran su-aasha kale waxay ahayd haddii ma aragtay kormeer la sameeyo guddigii oo diriseyntii ka shaqeynaya xaafadihii ay tageen ee ku arkeen dad dhalinyaro ah oo qaangaaro ah isla markaana aanan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada maxay yihiin doorka maamulku maaragtay uu ku leeyahay waxa weeyaan waa maasantahay cabdinaasir waxa weeyaan maamulku shacabka qaybihiisa kala duwan anaga waxaa waa mas-uuliyada naga saaran waxyaaba qaar waa ogsoonnahay waxyaaba qaarna maan ogin waxaan ogeyn horta ilaahay nagu cadaabi maayo laakiin waxaan ognahay oo wax ka qaban karno waxaan sameynaa ka hortag ama waa inaan wax ka qabano tusaale cabdinaasir daahir sibriyo hadda horteeda fadhiya oo maanta barnaamijka daadihinayo hadda ka hor waraysi aan siiyey waxaan ku xasuustaa 130 dhalay arday oo loo qeybiyey iskuulaadka degmada Kaaraan oo isugu jiray dad aanan awoodin waxbarashada inay iska bixiyaan fiiga waxbarashada aan awoodin waxay ahayd 2014 runtii iskuulaadkii markaan ardaydii u bandhignay baahida ay qabeen u sheegnay adhaana dadkan waa dad masaakiina aanan awoodin inay iska bixiyaan fiiga ama lacagta waxbarashada inay iska bixiyaan awoodin waxaan idinka codsanaynaa ka maamul ahaan tal ahaan idinku soo jeedinaynaa inaad dadkan qaabishaan kadib waxaan sameyn xaafadihii xoogaa raadinay dadba dadka ka sii liitaan ayaan soo aruurinay iskuulaadkiiaan u qaybinay dadkaas hadda iskuulaadkii dhigtaan waxay marayaan heer ma aragtay dugsi sare marayaan sidoo kale haddii qofka dugsi sare uu dhameeyey waxaa la xiriirnaa jaamacadaha xilliga oo sanad dugsiyeedka markuu dhammaado warqadaan u qornaa waxaa dhahnaa intaasoo arday intaasoo qofood waxaa jirto aan awoodin inay waxbarasho iska bixiyaan kadib markay noo soo jawaabaan tusaale jaamacadii waxay leeyihiin mid 10 oo soo yabooha mid 20 kulli waa soo aruurinaa markaa soo aruurin kadib waxaa u bandhignaa dadkii si u kala darnaayeen xogay waxaan rabaa su'aal ku saabsan degmada waxaa waa degmo weyn oo 5 wax ka kooban sidaan la soconno waa degmooyinka ugu ballaaran gobolka Banaadir marka laga hadlayo
dadka deganna waa dad aad u badan oo isku jira dadka leefadada kala duwan dadka lacagta leh oo qaniga ah kuwa dhexaadka iyo kuwa levelka hoose ee ka ciyaara dadka degan waxaa ka mid ah dadka guryaha kiristayaasha ah oo aan guryaha lahayn oo bil inta degan bil wajaar degan bil nagay degan bil fanol degan bil meel degan dadkaas marka degmada ma ka warqabaan qofka deganaa shalay wajaar maanta degan jamhuuriya ama nageyle ama waax kale fanol degan degmada qofkaas ma ogi ma laga ogyahay oo ma laga warqabaa هذا ما استنى عبد الناصر سؤال دان جوابتي يقول قالوا دقمة كاران أركيفية لذا قفكي سود دقة جوري وحلقة بوهيا فوم كاس وحواي لبا قانا ضواي قانا كرة وحواي كريسته قفك جوري كريسته قفك ملك سوري قفك ملك لها جوري إسكاله حلقة قرا مجلسة تلفون نمبر كيسة قفك كلام تضع جوري كريسنا وحاسنا لو يديا ماشوا كسو جوري ماشوا دقاي قفك الضمين كأ صابته وسو جوري صابته كان سو دقاي يعني ودورتين وسو دقا حفظان باريس إير كدب وحلقة قرا دوكومنتي وحلو يديا ضمانات وجوري اسكو دقاي qofka hadduu si damaanad haysan ma degi karo marka galkana waa yaala xafiiska daarabtiin waa la intusi karaa sidaas ay degmada ula howlgashaa dadka oo shacabka intaan ka bixin waxaan soo kala weydiin ku saabsan dalaalada laftikooda inkastoo gudoomiyaha ka mar doono wixii dhameystira dadka dalaalada ah ee degmada ka shaqeeya kolley qofkan guri markuu degaayo qof ayaa u soo sheegay guri boos ka bannaan yahay ama guri ka dabaqa oo 10 qol oo ka bannaan yahay faanoole qof ayaa ku maanac ku leeyahay guri hebel xaq bannaan meeqa lagu kariyaa $300 qofka lacag ka qaadayo $5 dalaal ama $4 ka qaadanaya qofkii guriga uu tagaa adigii qof guriga la sarkay midinba waxaan dhaxaynin dalaal ah qofka dalaalka ah degmada ma ka diiwaan gashan yahay haddii ku diiwaan gashanayna sidee loo ogaanay qofkan gurigan degan loo ogaanaya sida ognahay wadankan burbur oo soo maray dadka si private u shaqeystaan dalaalaydu degmadu way degan yihiin laakiin diiwaangelin rasmi oo laga haayo ma jirto laakiin haddana saasay tahay degmadu waa la macaamilaan waxay u tagayaan gudoomiyaha waaxda xaafadda oo arkaa degmadu keena dalaalkii iyo qofkii guriga keenaysa iyo gudoomiyaha waaxda indirect aan kula shaqeynaa maanta waayaga waxaan soo doonaa gudoomiyaha ayaa markaas soo doonaa gudoomiyaha amniga degmada gudoomiye sidee loo kordhin karaa wada shaqeynta booliiska waa ciidamada amniga ee degmada ama nabad isku dhahdan booliiska iyo shacabka sidee loo kordhin karaa hadda sama wada shaqeeyaan waa mahadsantahay hadda way wada shaqeeyaan bulshada iyo qeybaha kala duwan ee amniga sababta degmadan Kaaraan aad ogtahay waa degmooyinka ma arkinoon ugu horeeyo dhinaca nabadgelyada dhinaca amniga ama dhinaca nabadgelyada waa degmooyinka ugu horeeyo haddii marka bulshadu aanan ka shaqeynin amniga aynan la shaqeynin haddana ma aragtay hay'adihii amniga ka shaqeynayay waa dareemi kartaa amni ma jiro lahayn waxaad dareemaysaa reer Kaaraan waa dad bulshaawi ah la shaqeeya amniga kana shaqeeya amniga marka waa ma arkinoon way jirtaa arrinkaas waxa lagu kordhin karaa midda ah oo sidee loo kordhin karaa midda ahna waxa lagu kordhin karaa hadda waxaa jiro iska warqabka iyo wada shaqeynta booliiska iyo shacabka wax la hayo dadka sidaad ka warqabtiin xaafadaha habeenkii is dagaalaan rooba da'o guri kale biyo ku dhaxdeena masharaaf kale cid kale biyo guriga ku dhaxdeene cida dhagax la soo tuur cunugooda cid kale ku dhaca gabar cajiin doonta wiil foodeeha waxa soo dhan buuqa ka dhasho waxa xalliyo iyo goobta lagu xalliyo waa saldhig waa booliiska waya su'aal kala raacsana arrintaas lafteeda ma jirtaa madal ee isku keentiin bulshada iyo amniga aad u mahadsantahay way jirtaa laakiin xaqiiqdii hadda waa sanadle waqtigii hore maba jiri jirinba waxa laga soo kabsaday inay jiraan hadda jiritaankooda waxa laga dhigay sanadle hadda waxaan rabnaa marka sanadlihii inaan ka gudubno aan u daadajino 6 bilood aan u sii daadajino ma arkinoonay wax loo yaqaan ma arkinoona bil amba 30 biribo inay bulshadii booliiska ee wada kulmaan kulanka midka sanadlaha ah si guud su'aalasan la soo weydiinayo la soo fadhiisanayo la dhahayo waqti hebel dhibkaas dhacay booliiska u soo caawday waay waqti hebel habeenkaas oo imaaday booliiska ay caawiyay saacadaas dhacday booliiska shacabka ay runta sheegaan inay dhahayaan askarigaas noola soo diray askariga saas oo noo galay dhibaatadaas kala kulanay
meesha wanaag oo sameeyay xumaan oo sameeyay kuwa waxay leeyihiin wanaag oo noo sameeyay waxaan la filaynin kalsooniya helnay wuuna caawiyay anoo cabsanayo habeen jidka iga dhaweeyo oo soo daahay waxyaabo badan oo ma arkinoon ay sheegaan marka taas waa sanadle waxaan rabnaa taas in la badiyo in la kordhiyo mid waxaa jirta marka si dadban haddana ay u kulmaan sababtu waxaa waa qofkan xaafadda degan wax dhibaayo arkaa xaafadda ama wax gurigiisa dhibaaya ama wax shakhsiyadiisa dhibaaya saddexdaas dhibba markuu arka wax sida guud oo caam oo xaafadda dhibaayo wax gurigiisa dhibaayo oo dadka la degan oo dhan dhibaayo ama wax asiga shakhsiyadiisa dhibaayo saddexdana wuxuu u caawdaa ciidankii u caawana ama maamulka u caawana way gabagabada barnaamijka soo gaarnay waqtiga ay naga ilaaday oo halka saac ayaan sii dhaafoona markaan waxaan rabaa inaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada weydiiyey saaxiibka cabdiqaadir gudoomiye isboortiga inaan kaa weydiiyey maadaama gudoomiye arrimaha bulshada aad tahay socoto isboortigu wuxuu ka mid yahay waxa u badan ee dhalinyaradu isticmaasho dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 75 wax ka badan ayaa lagu tilmaamaa oo dadka u badan bulshada dadka Soomaalida waa dhalinyaro rag iyo dumar isku jiro dumarka ragga ugu badan xilligan waxaan ka hadlaynaa marka isboortiga xilliyo hore 20 sano 15 sano ka hor marka laga hadlo wuxuu ahaa dadku wadanka kala xirnaa oo xaafad ka xaafad ama daradan saadka oo nabadiidkan oo meeysi jirin xaafad kasto faanole waxa dadka degan faanole ku badan ku ciyaari jireen Djibouti wajeer ay kala hayeen hadda su'aal laga gudbay oo wiilka degan faanole wuxuu la ciyaaraa wiilka degan siigaale oo hodan ah oo saaxiibtinimo iyo aqoonsi ayaa isku yimaada goroma salax oo fofog la aadaa saas silsilada degmada waxa kamid degmooyin goromada weyn ku yeelin qoob dooda ku yaalo dhabarkan dambaha iyo iskuulka maxamed axmed cali oo goromada weyn oo kubadda lagu ciyaaro ah adinka maamul ahaan adigu gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada ah haddaad tagto degmada garoonkan qoob doora ama kaas maxamed axmed cali oo kale waxa laga yaabaa inaad ku aragtid dhalinyaro adag ka seenin oo degmada ku ciyaarayaan oo qaarkood xataa magaca degmada kaaraan uu boofanta fanaanada maaliyada ah sidee ku dhici kartaa ma ka warqabtaan dhalinyaradaas degmada degan sidee u warqabtaan xitaa kuwa garoonka ciyaaraya maadaama garoonka degmada uu yahay ma laga warqabaa aad u mahadsan tahay runtii sportiska kaaraan horta waxay ku tahay aad u mahadsan tahay soo kooba sportiska reer kaaraan waxay ku yihiin caan ku yihiin waxaa jiro wax la yiraahdo gudoomiyaha sportiska degmada jiro oo maamulka qaybiis kale kamid ah oo xafiis ahaan anaga hoos yimaado tusaale waxaa la sameeyaa waxyo ayaa loo diiwaan geliyaa tusaale waaxda faanola kada tusaale soo qaato waaxda koowaad waxaa ka diiwaansan inta koox inta ciyaartooy ay dheesho way diiwaansan tahay waaxda Djibouti sidoo kale waxyaha dhasaas u diiwaansan yihiin waxaa la sameeyaa marka qaar isdhexgal shanta waaxood la isku keenaa wala dheelsiyaa marka ma jiri karo mana ka soo dhaxbixi karada soo koobarka ciyaartooy aan la aqaanin oo ku ciyaaraya garoomada degmada kaaraan ee qaybiis kala duwan oo ku ciyaaraya ma jiri karo sababtoo ah waxa laga buuxiyay marka horeba kabtankii kooxda forma laga hayo waana wala diiwaan geliyo kooxaha dhan waa diiwaansan yihiin waa diiwaansan yihiin gudanaysa arintii waxaan jeclaan inaad si adkaysto sarad ku saabsan dadka degan degmada Idaalid ah inoo soo koobliba waa mahadsan tahay waxaan baaq u dirayaa dhammaan bulshada reer kaaraan gaar ahaan kuwa dulaaleyda ah waxaa jiro kuwa xoolo gado waxaa jiro kuwa ma arkinoona gawaarida gado waxaa jiro kuwa guryaha gado way kala duwan yihiin waxa aad noqosanaya kuwa guryaha iyo gaadiidka waa mahadsan tahay saxafi balse laakiin markaan dhahayno xoolaha anagu waxaan dareemaynaa waxyaabo noqosay inay kamid yihiin sababto dhulkan furan waxaa laga keenaa gawaari waaweyn oo jamaacaadka loogu adeego ma arkinoona loo lacageeyo investmentiga inta looga sameeyo si ay ma arkinoona howlahooda ay xag ugu sii sameeyaan marka dulaalo waxaa jira marka reer kaaraan oo arrimahaas fududeeyo ama dulaalo ma arkinoona dhuumanayo oo arrimahaas si ma arkinoona dhuumaalaysi ah ku sameynayo marka waa waajib marka ayaga laftooda inay fariinta gaarto maadaama ay dulaalo yihiin waxaan rabaa dhammaan cid kasta ay quseyso oo dulaal ah oo ma arkinoona gada ashyaada kala duwan noole iyo waxaan aan nooleenba waxaan farayaa oo baaq ahaan ugu dirayaa in ay ka digtoonaadaan in ay ku fududaadaan marka hore wax muran ku jiro wax muran amba dood ama ma arkinoona qof shiciba muwaadin Soomaaliyeed xoolihiisa in laga gado ma arkinoona asigoon raali ka ahayn amba sharciyan iyadoo sif ahaan dhameystirneen waa farayaa taas midda labaad cid kasta oo muwaadin Soomaali ah ama cid kasta oo ajnabi ah ee wax laga gadaayana dulaalada dhulka gadaayo waxaan ugu baaqaynaa ama fariintaan ugu diraynaa in ay ka digtoonaadaan iyadoonan procedureska dawladnimada soo marin ama nidaamka dawladnimada soo marin
sababtoo ah waxaa waaye cidda aa wax ka gadaysid lacagaa wax kugu raaceedo hunguriyaa ku raaci karo waxaa laga yaabaa meeshaas shala ma arkinoona in yaroo dulaalka heli jirta ninkan inuu kuu sheego in ka badan kuu sheego wayna dhacday wayna dhici kartaa macnaha markii qofka ma arkinoona maleeg ama tuuganimo wax ku gadanayo ama qofka markii cadow uu yahay oo inuu wax daga rabo ku lacag ma ahan midka kale wuu ka lacag badan yahay farasaarkiisaa badan horumariskiisaa badan muxuu ahaa ma arkinoona afgarashadiisa gaarkaa badan waxaan rabnaa marka dadka loogu adeego maamulka iyo bulshadaba ha loogu adeego si cadaalad ah waxa aad gadaysiin iska hubiya yeenan idinku soo noqonin waad aragtaan maxkamadaha maalin waliba dulaalada la soo istaajiyay ee gawaarida gado waa aragtaan kuwa guryaha gado ee la dhahayo wuxuu guri ka gaday nin noocaas uu ka gaday marka baaqaas ayagana uu diraa bulshada reer Kaaraanna waxaa soo dhow Ramadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala ma aragtay inaan dhaho khayrkiisa Ramadaanka ma soo haayo Allahna waafajiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Kaaraan gaar ahaan reer Kaaraan waxaan ugu digayaa sidoo kalena in waxyaabaha Ramadaanka dhibaatada gelinayeen inay ka sii waantoobaan aan ka wada shaqeyno bulshooy amniga ma ahan in aniga keligay ka shaqeeyo aniga keligay wax ima taraayo adigana waxbuu ku taraa anigana waxbuu ii taraa reer Kaaraanna waxbuu u taraa marka aan gacmaha isqabsanno aan wada shaqeyno aad u mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi gudoomiyaha waa gudoomiyaha amniga ee degmada Kaaraan ah kusmaha gudoomiyaha degmada ayuu kaasaha sidoo kale waxaa barnaamijka la qayb galay gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha dhalinyarada iyo sidoo kale xogayaha degmada Kaaraan anigu Cabdinaasir barnaamijka la socodsiinay waxaan u mahadcelinayaa hay'adda IRC oo barnaamijka taabagelinaysay waxaa sidoo kale barnaamijka daawanaysan TV qaranka Soomaaliyeed xarunta dhexe magaalada Muqdisho waxaan u mahadcelinayaa farsamayaqaanadii iyo kaamiramanadii barnaamijka ka qabatay iyo dadkii ka qayb galay oo degmada Kaaraan ku sugnaa oo haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka degmada ay ku jireen inta su'aalaha weydiiso oo maanta celinaya si kale waxaan ka cudur daaranayaa dadka weli su'aalaha qaba ee su'aalada aan soo gudbin laakiin barnaamijyo kale ayaa jiri doona oo degmada lagu qaban doono oo ku saabsan darseenta iyo barnaamijyo kale oo ka baxsan darseenta oo aan doonayno inaad su'aalihiina si lamid ah u soo bandhigtaan waqtigiina meelahaas ay ugu faa'iideysan doonaa. Waa mahadsantiin. Bye bye.